asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu daawadayaashayda qiimaha iyo sharafta iga mudanow. waxaan jeclaystay in aan idiin soo gudbiyo nin aad magaciisa in badan aad wada maqasheen, barnaamijkanna ciwaankiisa hore aad ku soo aragteen, waana salaaxuddiin al ayuubi, geesigii islaamka soo maray, taariikhda islaamka baaldahaba ka galay, tan reer galbeedkana sidoo kale yuhuuddana cashir lama iloobaan ah u dhigay. qisadiisoo dhammaystiran min bilow ilaa iyo dhammaad ayaan idin soo gudbinayaye ee la socosho wacan. asxaabtaadana ha kala baqilin videogan in gaarsiiso adigoo mahadsan. taariikhda halyay dunida islaamka soo maray ee salaaxuddiin al ayuubi. salaaxuddiin al ayuubi waa hogaamiye geesi muslim ahaa, noolaa qarnigii 12aad oo ku raaxaystay asaaska awoodda islaamka oo xoogaysatay, isagoo gaaray guulo waaweyn. waxa uu mideeyey masar iyo suuriya, waxa uu qudus ka kiciyey yuhuudda, isagoo sidaasi magaciisa ku galay diiwaanka dhammaan taariikhda islaamka iyo midda reer galbeedkaba. magaciisoo dhammaystiran salaaxuddiin al ayuubi waa yuusuf ibnu ayuub bin shaadi bin marwaan bin yacquub al diiwaani al tikriti. waxuu sidoo kale lagu yeeri jiray maaliku naasir, abu masbar iyo salaaxuddiin. wuxuu caan ku ahaa magaca salaaxuddiin al ayuubi. salaaxuddiin waxa uu ku dhashay qoys kurdish ah sanadii 137 miilaadiga, wuxuuna ku dhashay magaalada tikrit ee dalka ciraaq. waxay ahayd magaalo ku taalo laba wadi dhexdooda. kadib waxa ay qoyskiisa u dhaqaaqeen ama u guureen magaalada xalab ee dalka suuriya, halka salaaxuddiin ku koray magaalada baalbek lubnaan iyo magaalada dimashik suuriya, isagoo halka ka helay tababaro isugu jira mid diineed iyo mid askarnimoba. salaaxuddiin ayaa askarnimadiisa ku bilaabay markii uu ku biiray kooxda adeerkiisa asaddiin sheeko, kaas oo ah taliyo military oo ka hoos shaqaynaya boqortooyadii amiiruddiin zanki. salaaxuddiin ayaa markaasi ilowsanaa khilaafadii 3 geesoodka ahayd ee u dhexeeyay shaawir oo ahaa wasiirka khilaafada faatimiya iyo masar boqorka koowaad ee qudus iyo adeerkii shooka. sanadkii 169 markii ay salaaxuddiin da-diisu gaartay 31 jir ayaa loo magacaabay taliyaha ciidamada suuriya ee ku sugan dalka masar. waxa uu keliya guursaday gabar la yidhaahdo casmadiin khatuum oo u dhashay 3 wiil oo kale ah afdal, cusayr iyo daahir. sidoo kale waxaa la dhashay salaaxuddiin al ayuubi 2 wiil oo la kala dhaho tawraan shaah iyo caadil sayfuddiin, iyo gabar magaceeda lagu magacaabo rubayca khatuum. kadib dhimashada nuuruddiin zanki, salaaxuddiin ayaa u baxay dimashik, halkaasoo lagu soo dhaweeyey. waxa uu guursaday naagtii uu ku dhintay boqorka carmalkana ahayd, magaceedana lagu magacaabayay casmadiin khatuum, halkaasoo uu ku xoogaystay sharcigiisa, isagoona ku guulaystay in uu wareejiyo xoogagiisa militari magaalada xalab suuriya sanadii 172 miilaadiga, iyo sidoo kale magaalada moosul ciraaq sanadii 186 miilaadiga. iyadoo salaaxuddiin awoodiisa ku xoogaysatay dhammaan suuriya, ayuu ku dhawaaqay xabad joojin uu la galay saliibiyiinta sanadii 178 miilaadiga, isagoona ulajeedkiisu ahayd in uu kasoo kabsado guuldaro kasoo gaartay, laakiin wuxuu cusboonaysiiyey weeraradiisa sanadkii 179 isagoona kaga adkaaday ciidankii saliibiyiinta dagaalkii lagu magac daray toogi yacquub. waxaana dagaalka horboodayey dhanka dowlatu ayuubiya salaaxuddiin al ayuubi, iyadoona dagaalka ay ka dhinteen
yuhuudda 800 askari halka 700 kalena laga qafaashay, halkaasoo jab weyn ka soo gaaray yuhuudda. sidoo kale guulo weyn ayaa u soo hooyatay dowlatu ayuubiya. khasaaraha saliibiyiinta inta kuma ekayn dagaalkii togi yacquub. sidoo kale dowlatu ayuubiya ayaa burburisay gebi ahaan xuduud cusbeed ee alqaah oo ay markaasi dhiseen boqortooyadii yuhuudda ee baytulqudus, taasoo ku dultaalay webiga dalka urdun ama jordan, iyadoo u dhexaysay marinka golan iyo waqooyiga galiile, iyadoo jabka saliibiyiintu keentay in tiro ka mid ah saliibiyiinta ay jawaab ka dhigeen dhibaatooyinka ganacsiga islaamka iyo sidoo kale xujayda islaamka oo ku dhiban marinka badda cas, iyagoona ku hanjabay in ay weerarayaan magaalooyinka barakaysan ee maka iyo madiina. sidoo kale waxay bililqaysteen kolonyo ka mid ah xujaydii muslimiinta sanadii 185tii bishii luulyo 187 salaaxudiin wuxuu awood u yeeshay inuu tiro ciidan ka badan saliibiyiinta ay dagaal dhex maray isaga iyo isbahaysigii boqorkii yuhuudda ee baytulqudus waqtigaas iyo roomaankii saddexaad ee ka talinayay magaalada Taraabuls ee dalka Lubnaan. dagaalkani waxa uu ahaa jabkii ugu weynaa ee taariikhda saliibiyiinta, waxaana loogu magac daray dagaalkan dagaalkii xatiin. wuxuuna wadada u furay sidii dib loogu soo celin lahaa gacanta muslimiinta baytulqudus, falastiin, Taraabuls, Lubnaan iyo Ankara oo ahayd caasimada Turkiga. dagaalkan ayaa waqtigaasi soo afjaray heshiisyada yuhuudda iyo dhulka barakaysan ee Qudus. dagaalkan xatiin dagaalka ayaa u dhexeeyay sida aan kor ku soo xusay dowladda islaamka iyo saliibiyiinta oo kala ah boqortooyadii yuhuudda ee Qudus, maamulkii Taraabuls, imaaraadka Ankara, kooxdii Furstaan, haykal Francisco, kooxdii Furstaan, isbitaaliya Mataalta iyo militarigii Furstaan Qudus Lazarzo. waxa uuna dhacay maalinimo sabti ah. waxa uu dagaalkani dhacay maalin sabti ah ayna ku beegneed Rabiicu Thaani 583 hijriyo, halka dhanka kale ay ku beegneed 4 Julaay 187 miilaadi. waxa uuna ka dhacay Falastiin, xaafada u dhow Almajaadah oo ku taalo meel u dhaxaysa magaalada Nasara iyo magaalada Dibrayda ee dalka Falastiin, balse hadda ay gacanta kaga jirto dowlad yuhuudda ee dalka Israa'iil. hogaamiyaasha dowlatu ayuubiya waxay kala ahaayeen Salaaxudiin al-Ayyubidiin Kugbaari, Muzaffar Taqiyadiin, Cumar al-Caadil, Abubakar bin Ayuub iyo wiilka Salaaxudiin ee lagu magacaabo Afdal bin Salaaxudiin bin Ayuub. dhanka saliibiyiinta waxaa hogaaminayay Qeidi, Luzayniyaan iyo Balyaan Jerdan, Rifyot, Gernad, Denablus iyo Arnaat. dagaalka ayaa lagu dilay wuxuuna ka socday imaaraatu Antakiya. awoodda labada dhinac dowlatu ayuubiya, quwadda dhanka Salaaxudiin al-Ayuubi ayaa ahayd 30,000 oo askari ah, kuwaasoo kala ahaa rag, waxayna isugu jireen 12,000 oo shisheeyahan ah iyo 180,000 oo ciidamada dhulka ka dagaalama ah, halka saliibiyiinta ay ciidamadooda gaaraysay 19,000 ilaa 30,000 askari rag ah oo isugu jirtay 15,000 ciidamada dhulka ah, 30,000 oo ciidamada gaashaanka ah,
1,100 ciidamada fardaha ah iyo 500 oo ciidamada dheereeya kuwaas oo ku dagaalama awrta iyo fardaha. natiijada dagaalka Xatiin. dagaalkani waxaa ku guuleysatay dowladii islaamka ahayd ee dowlatu Ayuubiya, kuwa oo soo gaaray khasaaro tiro yar oo aan la xaqiijin, halka ciidamada Saliibiyiinta ay ku dhawaad 30,000 khasaaro ku soo gaartay oo isugu jiray wax la dilay iyo wax la qafaashayba. geeridii Ilaaha u naxariistay geesigii soo maray islaamka Salaaxudiin al-Ayuubi. Salaaxudiin ayaa xanuunsaday maalin Sabti ah Febraayo ku beegneed 20 Febraayo 1993 miilaadiga iyo 16 Safar 589 Hijriga, isagoona la soo diristay qandho. sidoo kale waxa uu ku dhibooday hurdada, isagoo in ay yar hurdi jiray habeenkii xanuunka ayuu la daris ahaa ilaa tiisi ay ka timaaday. ugu dambayn Salaaxudiin al-Ayuubi ayaa geeriyooday, Ilaaha u naxariisto, maalinimo Arbaca ah kuna beegneed 4 Maarso 1993 miilaadiga, iyo dhanka kale muslimkana ay ahayd 27 Safar 589 Hijriga. waxaana lagu duugay salaadii casir kadib iskuulka Al-Caziziya oo ku dhawaa Masjidu Al-Umawiya magaalada Dimashq ee dalka Suuriya. Eebe ha ku naxariisto geesigii taariikhda islaamka baaldahab ka galay. sidoo kale Yuhuudda iyo gaaladana kaalan cashir lama iloowan u dhigay haliyey Salaaxudiin al-Ayuubi.